بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إلهي وعلمها النقينا نيموين كسواوي إنه النعميي أسألكم حسن اللهم لك الحمد أنت كدب ولا ليال maanta halka waxaynu ka bilaabaynaa dowladii la cilaamiyey ama seminaarkii la cilaamiyey oo aynuugu magac darnay dowra cilmiya tadriibiya oo macalimiinta madaaris diiniga loogu talagalay dowradaasi mawaadicdeedii si guud ahaan baan hore u dulmaray maanta insha allahu taala qeybta tadriibka macalimiinta khusaysa ayaan liqaa'an ama kulankan aan kusoo qaadan doonaa biidn illahi tacaala dowladda halka ay ku qabsoontay waxaa weeyaan markas almadina lita'hiil ilcilmi ee ku yaala nairobi kenya anigoo ah aadan sheekh cabdullaahi dadka i yaqaanan baariyow ayaa soo jeedin doonaa biidn illahi taala culamo kadana waa ila wadaagi doonaan biidn illahi tacaala majaalka takhasusu leh maadooyinta ugu badan anaan qaadan doono insha allahu tacaala maadaama mawaadicda qaar in badan aan kusoo jiray macalimiin badanna aan in badan aan maxay ahayd kulan ay yeelanay bacd almawaadicna culimo iyo mashaayikhi dakaatira ayaa ila wadaagi doona biidn illahi tacaala kulankeena maanta ugu horeeya waxa uu ku saabsan yahay dowladda aynu qabanay as-ilaad ka jawaabi doonto ayuu ku saabsan yahay dowladda mawaadicdeeda waxay ka jawaabi doonaan as-ilaad iyo afkaaro la soo jeediyey ee mushaarikiinta loo soo darxiyay waa sidii ku horan sheegay oo kale ah afkaartaasi as-ilaadka la isweydiiyey ayay ka jawaabi doontaa dowladda liqaan ama kulankan adda maanta inoogu horeeyana insha allahu jawaab su-aalahaas ayaan ka jawaabi doonaa biidn illahi tacaala su-aalaha waxay yihiin horena usoo sheegnay haddana waa kuwa maa hiya dowra tadriibiya horta qof waa in la fahansay seminaar muxuu yahay dowra maxay tahay kow waan ka jawaabi doonaa dowraadka noocyadoodii intee bay u qeybsamaan muhiimadday u leeyihiin qofka mutadaribka ah ee dowladda kasoo qeyb gala ama macalimiinta ama mushaarikiinta iyo asbaabta keentay khibrad yarida macalimiinta qaar ka mid ah inay wax ku wadaan nidaam un maxay ahayd qardijeex ah oo aan lahayn systemna aan lahayn oo mutabaca laga yaabo dadka qaar sida taxfiidka ugu soo baxay in toos macalin u noqdo aana raadinin khibrad iyo isdowraad iyo aqoon kororsi sidaas uun ku wado muxuu ku wadayaa sida macalinkiisu kula dhaqmi jiray waxaa laga yaaba bey-adaasi bey-ada inay kala duwan yihin carruurtaasi carruurtii hore inay kala duwan yihin canaantii la canaanan jiray ushii lagu garaaci jiray in nidaamka uu ku wado khibradyarid halkaasay ka timid marka asbaabteedaan raba in aan sheegno maxaa sababay macalinka inuu khibradiisa yaraato madaarista diiniga taasna waan ugu jawaabi doonaa biidn illahi tacaala aynu ku bilowno su-aasha koowaad dowra maxay tahay dowra waxaa la yihahdaa caqdu jalsatin tadriibiyatin fi majaalin mucayanin tudraxu fiiha mawaadicun wa afkaarun taduuru bayna almashaarikiin waxaa la yihahdaa jalsa ama fadhi in la qabto dad meel isugu keeno waxaana lasoo dhex dhigaya dadkaasi mawaadic afkaar ee dheh wareegayso meesha dowladda laga qaatay halka magac laga qaatay taduuru bayna almushaarikiin ra'yiga maxaad ka qabtaan maxaad leedihiin in aaraada isweydaarsadaan kadibna hal la keeno wadalika biqasdi meesha ereyga biqasdi laamka waa daalweyn biqasdi rafci mustawa alcaamiliin maxaa loola jeedaa dowladda maxaa loo qabtay waxaa weya dadka kasoo qeybgalay mushaarikiinta ama shaqaalaha ama macalimiinta in mustawahoodii kor loo qaado wa tathqiifi in hiqaafo loo sameeyo aqoon guud in loo sameeyo oo waaqiciyiin ay noqdaan dowra macnaheeda waa sidaa ta'hiilna macnihiisa muxuu yahay ta'hiil ahal ugu dhigid weeyaan qofka inuu ahal u noqdo mathalan qur-aan baad dhigaysaa qur-aanka qaabka loo dhigo iyo usluubka iyo tacaamulka ardayda iyo qaababka jadwalka waa inaad fahamsan tahay farbar ma dhigaysa annaga waxaynu nooma kala soconaa macalinka markuu shaqo u baahdo madarsuu tagi wuxuu leeyahay shaqaan u baahana maxaad dhigi kartaa qur-aan ayaan dhigi karaa taxfiidka markaas waxa laleeyahay boos kama banaano farbar baan u baahana hitaa waan dhigi karaa buu leeyahay hitaa waan dhigi karaa farbarka waa qardajeex waa iska gal weya iisan baahi kuu geynin waxaadan dhigi karin
amaama allahi waa lagu weydiina haddii aruurtaasi waqti aad ka lumiso adna waad ku dhibtoonaysaa iyagana waad ku dhibaysaa marka qofku waa inuu shay ahal u noqdo ama taxfiid ama maahe farbar ama labada ha isku qaato laakin waa inuu ahal u noqdaa qofku marka ta'hiil maxaa la yihahdaa jaclu lmar-i mu'ahalan mu-ahil qof u ah oo ahal u ah akademiyan xagga nidaam ahaan system ahaan iyo akademi ahaan iyo wamihniyan xagga shaqo ahaanba waa in ahal looga dhigaa shaqada uu ku jiro marka dowradeeni waa dowra tadriibiya ta'hiiliya wey in sha allahu tacala waxaan rajaynayna wax badan inaan kala faa'idaysano biidn illahi tacaala aqsaamu dowra dowraadka qeybaha ay maxay noqon karaan ilaa 3 qeyb baan kasoo qaatay xasba ani caqd nawciyat dowraat xasba nawciyat dowraat xasab nawciyat dowraat dowraad waxaa jira dowrad caam la yihahdo waa midda ugu horeyse waa midda dowladda tawalisawa wa hiya adowraat alati tacqid alxukuma fi ljihaat almukhtalifa jihaadka kala duwan wasaaradaha barlamaanada shaqaalaha hoose iyo kuwa sare ayay u qabanaysaa dowladda min ajli maada min ajli rafci mustawa alcaamiliina shaqaalaha cilmiyan wa mihniyan in loo hormariyo dowladda ayaa maalgelisa tamwiil ku samaysaa wa ilxaaqihim inay gaaraan birukabi tatawuri fi majaalaati acmalihim dadka horumaray shaqadoodii horumartay inay ku biiraan baa la rabaa sidaas ayaa dowladda loo siinaya wa icطaa'i almasiidi min almahaami shaqooyinkoodii ay qabanayaan in ziyaado la siiyo oo ah tatawur ah alati tatacalaqu bitatawuri alwadiifa horumarka shaqada taa dowladda ayaa iskale maxaa la yihahdaa addowraat altadriibiya alcaama ayaa la yihahdaa ciidamadii ayaa soo geli karaa wax badan baa soo geli karaa wa dowrada labaad addowraat altadriibiya alkhaasa waa kuwa berefadka dad ashkhaas muayana si khaasa u qabsanay taqumu bacd alhayaat maxay samaynayaan walmuasasaat bicaqdi wa tasmiimi bacd adowraat alkhaas bay qabanayaan dowra khaas u ah ashkhaas muayana hay-ad muayana ama markas muayana qabana liashkhaasin muayana maxay samaynayan wataqumu bijamci cadadin minhum dad bay isugu keenaan meel wa taqdiimi waxay usoo gudbinayaan maadatin cilmiyatin shaamila fi kuli ixtiyaajatin baahida ka jirta mathalan waxaa loo baahanayaa dowro ku saabsan farbarki ayaa waayahan liitee hay-ad oo hay-adaha ka mida tacliimiga ayaa waxay qabanayaan macalimiinta farbarka ayaan maxay ahayd dowro u samaynaynaa ixtiyaajaad jira wey ama qur-aanka ama maadooyinka luuqadda ama maadooyinka saynska wixii lamid a wa hiya tuctabar dowraadka khaaska waxa la aaminsan yahay tuctabar min ashhari alanwaaci dowraat atadriibiya inay tahay oo dowraadka ugu badan caalamka la qabto ku dad khaasa ay qabanayaan inta badanna waxaa way qasadkooda dowraadka noocaas oo kale ah biqasdi ribxi weeyaan inta badan biqasdi ribxi in lacag lagu helo inta badanna waxaa wey markii lacag hadafka u noqdana waxaa laga yaaba shayga in sida la rabay uusan u qabsoomin ama naaji uusan u noqonin alati yasca alkathiiruuna lililtihaaq biha in badan waxay ku dadaalayaan dowraadka noocaas oo kale inay ku biiraan dowrada saddexaad waa addowraat altadriibiya alta'hiiliya dowraadka tababarka dad khaas ah ani shaqo mucayan ah looga dhigay oo laleeyahay waxaan rabnaa macalimiinta taxfiidka dhiga in taxfiidka jadwalkiisa nidaamkiisa iyo nashaadaadkiisa inaan ahal aan ugu dhigno aqoon aan ku kordhino dad mathalan waxaa qaban doona dad oo barnaamijkaasi khibrad u leh ilaa muddo kusoo jiray waayana waxaad ogtihiin dowraadka la qabto inta badan dadka qabta waxay u badan yihiin qof uun meelaha internetka ama kutubanta wax ka akriyey in macluumaadku soo urus u yihahdo macalimiinta intaan siinaya waxaynu ku fiican tahay hawshu dadka shaqadaa soo qabtay inay qabtaan dadka shaqadaa soo qabtay oo kusoo gubtay dhib badan la soo maray khibrad badan ka kasbaday in khibraddaas dadka uu ka kordhiyo taasaa fiican mid camaliga theory inaysan noqonin nathary inaysan noqonin marka dowladda tadriibiyya ta'hiiliya maxay noqonayaan wa hiya tucqadu maxaa loo qabanayaa litanmiyati mahaaraati alcaamiliin dadka hawshaan loo rabo in shaqadoodii ay horumariyaan ee la kobciyo wa husuulihim almahaaraat washahaadaat inay helaan mahaaraat khibrad inay helaan iyo shahaadaad inay helaan alatii tu'ahiluhum lilcamali shahaadooyinkaasi iyo khibrooyinkaasi waxay ahal ugu dhigayaan in shaqadaasi sifan ay u qaban karaan wa takunu ka shartin asaasiya waayaan waxay noqotayba in shahaado dowro laga soo qaato ama dowro lasoo qaato shardi asaasiya noqotayba in shaqa aad ku hesho waa sax wa kulamaa qofka dowraad uu soo qaatay khibrado badan dad uu ka soo qaatay shahaadooyin uu wato waxaa weeyaan macalimadiisa waa la danaynaya lilcamali fi lcadiidi min almu'asasaati alkhaasa halka waxaynu uga baahnay noocyada dowraadka waxaynu gudagelaynaa faa'iidooyinka dowraadka ay leeyihiin qodobka koowaad dowraadka waxay muhiimad
weyn ay u leeyihiin kor u qaadida mustawaha dadka. talcabu dawraat atadriibiya dawran, kaalin fiican bay ka qaadanaysaa dawraadku ay ka qaadanayaan kaalimo fiican bay ka qaadanayaan haaman fi taxsiini mustawa alafraad. waa qodobkood. qodobka labaad, dawraadka tadriibiga waxay dhammaystiraan macrifadii aqoontii horead usoo qaadatay, dugsi aad kusoo qaadatay, jaamacad kusoo qaadatay inaad horumariso. lianna dad waxaad la kulmaysaa oo dadka kula wadaaga dawradaasi ama bixinay ama dadka kula qaadanay ayaa khibrad badan aad ka kasbanaysaa. aw التakhasusaat غayr mawjuudatin biاlasaas, ama takhususaad qofku uusan lahayn baa waxaa laga yaaba inay ku baraarujiso u yihahdo wallahi tarbiyada cilmiga tarbawiga aan ku takhasuso. leanna macalin baa wuxuu ujeediyey dawra tarbawiya oo ku saabsan tarbiyada caruurta, markaasu le qofkii u fikr leeyahay wallahi takhasuskan waa takhasus aad u fiican in caruurta la koriyo, maskaxdoodii falsafadoodii lala socdo. qodobka saddexaad, dawraadka laga faa'iido waxaa weeyaan dawraadka tadriibiga waxay bixiyaan shahaadooyin marmar caalamka la aqoonsan yahay. taquum bibacdi dawraat atadriibiya biminxi maxay bixinayaan الشهادات المعتمدة، شهادooyinka la aqoonsan yahay والتي تكون بديلا عن السفر للدراسة. waa شhahaadooyin sفر loo geli lahaa baa laga yaaba inaad ka faa'ido, ama sفر aad u geli lahayd dhowr maal u socon lahayd, diyaarad u qaadan lahayd baa laga faa'idaya. faa'iidooyinka dawraadka waxaa ka mid a in dadka khibradaha isdhaafsadaan, indimaaj in la isdhexgalo. maxaa yeele taas waxay u furaysaa aafaaq jadiid ay u furaysaa lilmushaaric. qofka waxay u furaysaa in dad u dhexgalo, khibrad u ka faa'iidayso, in hore usii socdo min atacalum watagyiir nadrat almushaarik lilxayaat, noloshiis in wax ka bedesho. marka aaraad in la isdhaafsado, meel in laisugu yimaado, ama qola laisugu yimaado, iftiraadi ha ahaado midka online oo kale, ama mid qol hool toos la isugu yimaado ha ahaado, khibrad badan baa la kala faa'iidaysanaya. kulama qofka dawraadka ay bataan khibradiisina way badanayaan. waxaa ka mid a faa'iidooyinka dawraadka mahaaraadka tawasul ijtimaaciga, wada xiriirka, wada shaqaynta. macalinkii awal keligiis ah waxay dhihi jiray waana la ima sheeg waana dad uma sheegahay, qof furfuran buu noqonayaa. berito markii dhibaato la soo gudboonaadaan macalimiinta la soo qaaday dawraadku leeyahay warniyahow maalin wati aan soo qaadanay masalada aan soo qaadanay cunug baan kari waayey, kaasoo kale maxaad ku samaynaysaan. marka hore muu dhihi jiray qof iga aqoon badan ma laha. marka tawasul ijtimaaci aa dhici doon wa muxaawalati khalqi bay-atin min atacawun soo ma jeed almushtarak. dawraadka waxyaala laga faa'iday ka mid tahay in la isweydaarsado aaraada mutadaribiinta ay wadaagaan iskaalmaysiga, wabitaali iktisaab mahaaraati tawasul ijtimaaci bay kasbanayaan, waniqaash inay wax ka niqaashaan mas'alo qof ay qabsatay inay ka niqaashaan, walmuxaawarati inay ka wada hadlaan, waxtiraami aaraa'i alaakhariina. kii hore dhihi jiray hol ima sheega hadda maanta ra'yigiisku dhiibanaya, ra'yiga dad kale u dhegaysanaya. dawraadka laga faa'idaa cilman biana daka in aaraa la isdhaafsado, la iskaalmaysto, shaqooyinka dadka isku shaqada. annaga macalimiintan adow bay isku yihin xaqiiqad adow bay isku yihin macalimiinteeni, waxba isma kaalmaystaan. mid kale waxaad moodaa inuu adow ku yahay, aniga waaba laga yaaba inuu aaminsan yahy meesha waxa ugu furay. laakiin ogaada iskaalmaysiga, macalimiinta inay iskaalmaysadaan waa isku wadiifee, waxay ka mid tahay asaaska camalka. mu'asase kasta shaqaalaha inay iskaalmaystaan, aaraad ay isdhaafsadaan, ay maxay ahayd aqoonta ay kororsadaan, waxa weyn waa shaqada najaaheedii ayaa ku jira. faa'iidooyinka markaa halkaas ayaan uga baxnay. qodobkii uu ahaa macalimiinta khibradooda maxaa yareeyey. kow, horta khibrada macalimiinta waxaa yareeyay dawraadkooda yar. dawladaha iyo hay-aadka waaweyn dawraad baa loo qabta, ama macalimiinta madaarista yaaba u qabta dawra. qilatu dawraati tadriibi ayaa yar, wadalika anahu laysa hunaka muasasaat aw hay-aat taquum biinshaai maraakis tadriibiya. dawladaha waxay leeyihiin macaahid institute oo training ah ayay leeyihiin. annaga macalimiintani mala maraakis tadriibiya wa iqaama dawraat tadriibiya tafqiifiya. taa waa sabab in macalimiinta khibradooda ay yaraato, dawraadkoodana ay yaraato. kow. qodobka labaad, cadamu fahmin kathiir, waa midaan rabo in dad ku baraarujiyo. fahmin kathiir min macalimiin intoodii badan kuma baraarugsana faa'idada dawraadka tadriibiga. markii dawra la qabanay maxaa laga hadlayaa? farbar 10 sana dad farbaray buu leeyahay, anigu maxaa kale ii sheegaya? waa ka madaxa weynaaday oo iska dhigay qofan waxba ka maqnayn. maca dalika waxa weeyaan wax ku farbaraa mataqaana, maalan wax ku qoran 10 sano ka hor wixii wax ku farbaray horumar yarata malaha. caruurta waxay leeyahay 8 bilood 9 bilood bay joogaan, waxna ma akrin karaan. maca dalika markii la yihahdo dawlad tadriibiya la qabanaya wuxuu leeyahay intee aan wax baray anigu, khibrad ima yara. waa mushkilad weyn. tan saddexaad, macalimiintu waxay ku tacasubaan, ay ku dhegan yihiin, ayna ka foqayn dariiqada taqliidiga, tadriiska taqliidiga. sidaasaa ayaan yeeli jiray, macalinkay sidaasuu yeeli jiray, waxbaa lagu maro caruurta. bayna hadda aan joogno ma aqbalayso, waa waxa nacaybka keenay caruurta in wax loo bari waayo. atacasub bidariiqa tadriis ataqliidiya albaciid an ilwaaqi. waaqi hadda la joogo taqliidi ma ogolaana.
ushii iyo canaantii iyo haraatidii iyo caayidii iyo ma soconayso. kama yeeleen carruurta noocaan oo kale hadda xilligan jooga. hadafkeena dowlad mahaynla midkaan kusoo gabagabayna fadhigaani. hadafkeena dowlad aynu ka leenahay waxaa weeyaan macallin walba inaan u diyaarino ahal aan ugu dhigno maadada uu jecel yahay. qofka taxfiidka jecel inaan taxfiidka aan u tababarno, qofka farbarka jecel farbarka inaan u tababarno, qofka tarbiyada carruurta nashaadaadka ciyaarsiintoodii iyo sheekooyinkoodii inaan maxay eeda aan ku tababarno. waa qodobka koowaad. qodobka labaad tadqiifu lmucallimi, mucallimka in hiqaafo caam la siiyo, laga saaro qolka yar uu ku jiro fikirka yar maalin walba uu ka fikirahay oo aaminsan yahay waxba inaysan ka maqan in hiqaafo loo sameeyo, albaabka loo furo liyatamaasha maca alwaaqic walbeya, beer hadda jirto iyo waaqicga iyo caalamka hadda jiro inuu la socdo. sidoo kale hadafka aan ka lena dowladana waxay tahay tatwiir andimati lmadaaris, madaarista systemkooda in la hormariyo. see loo horumarinaya? biintiqaali nidaam alcasriy. maxaa loo gudbaya? in loo wareego nidaamka casriga. carruurta iskuol bay dhiganayaan, inaad meesha ad ku hayso ul ku garaadama, waa inaad la socota waaqi casriga. annashid, nidaam nashaad waa inaad samaysaa. ushaan taagan, canaantan meelna waa lagaa jiidana, carruurta dad baa kaa jiidanaya oo kasbanay, adna ma kasbanaysid. sidoo kale qodobada aan ka rabno hadafka dowladda ay taqiijinayso waxaa weeyaan alintiqaal min annidaam alcashwaai, nidaamkii cashwaa'iga isku qasnaa inaan ka gudubno. hageen u gudbayna ilaa andimatin wa qawaa'idin mutabac, qaa'idooyin iyo system inaan raacno. dugsi walba madraso walba in nidaam la raaco u qornaado, xafiiska u yaallo la raacay, macallin khilaaf le macallin waa halkaa iyo halkaa in la yidhahdo. laakiin iska soc, iska gal, carruurta waa u dhig, haddii maanta ay ka baxan haddayna ka bixin iska soc, waxba ma soconayso. sidoo kale hadafka dowladaha ka mid ah wadcu andimatin, in la dejiyo nidaam system, in la dejiyo wa wasaa'il iyo qalab ama nidaam wasiilooyin lagu gaaro taxbiibi nashi, dhalinyarada hadda joogta alladii kariha almadaaris diiniya, dhalinyarada hadda soo kacayso madaarista nacayb ka qaaday qaab waxdhigidda iyo qaab tacaamulka, inaan u dejino nidaam iyo system. xaqiiqatan waana la sameeyey, wax badan baa la arkay in wax la bedeli karo. annaga waxaan aragnay dowlaadkii hore loo qaban jiray, macallimiinta ka faa'iidaysatay, macallin 8 bilood dowro qaatay, markii dugsigu tagay wax ka bedelay, ushana 8 bilood ama 7 bilood ama 6 bilood hal maalin uluusan qaadan. aruusa ay jecelin aad yaabayso, aragtidiis markay arkaan ay kusoo yaacayaan. wasaa'il nidaam la dejiyey weeyaan, ma aha wax kale ma. hadafka ugu dambeeya dowladda waxay tahay qaabka tacaamulka iyo tafaa'ulka mujtamacan inta badan tacliinta diiniga fududaystay. waad ogtihiin dugsiyada lama daneeyo, waad ogtihiin sidoo kale madaaris diiniga lama daneeyo, sida loo daneeyo iskuullada loo daneeyo. mujtamacaas qaabkan ula laqmaynaa inta badanaad annaga waxa weye madax salaaxid iyo waan yeelaynaa iyo aan kula soconaa. waa in nidaam loo dejiyaa. hataa lacag laydama siiyo, dugsiyada lacag fiican lagama qaado. haddii la lacag fiican ay yidhahdaan maba la siiyaba, mid kale oo lacag yar qaadaa loo geeyaa. nidaam la-aan iyo tafaacul la-aan iyo fahan la-aan mujtamac iyo bulshadan inta badan diiniga gacan bidixaysay qaabkee loola dhaqmayaa. wax badan baan ka faa'iidnay dowlaadkii hore oo isbedel badan madaaris ay sameeyeen baa jira. baaraka allahu fiikum. liqaa'ana maanta halkaas ayuu ku dhan yahay. in sha allahu tacaala liqaa'aadka soo socda haddii ilahayd waxaan uga hadli doonaa qeybta khadka iyo qeybta imlaa biidn illahi tacaala, iyo sidoo kale jadaawishiina waynoo qoranyihin waan gurubyadan aynu kugu soo dirayna biidn illahi tacaala. ilahay waan weydiisanaynaa, nas'al allah atawfiiq waasadaad wain yajcala camalana khaalisan liwajhi. ilahay waxaan ka baryaynaa camalkan inuu khaalis ka dhigo, mid ilahay dartiis loola jeedo inuu ilahay ka dhigo ayaan rajaynaynaa. hada wabillahi tawfiiq. subxaanaka allahuma wabixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastagfiruka wanatuubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.